kalfadhigii 39aad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta iskugu yimaadeen mudanayaasha golaha wakiiladu waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax inoo furmay waxa ay quraanka inoo aqriyay xildhibaan Ogsiin intaas kadib waxa loo qaybiyay mudanayaasha ajadiha iskugu yimaadeen si ay u soo akhristaan isla markaasna looga doodo geesta kale waxa iyaguna kalfadhigii 69aad u furmay golaha guurtida Soomaaliland وبعدي سلوكا هذه لا يعلم يعلمني يجي يكتب سلوك وغير سلوك هذه لا يعلم